سلامة السلام كدب وحنو مهد علينا ولا لها دمان مرتدى نوعه runtii waqtigooda qaaliga noo soo huray oo meelo fog ka yimid aan dareemi karno waqtigooda oo cariiri ah inay maanta kulankan qiimaha badan nagu ixtiraamaan naguna qadariyaan naguna qiimeeyaan mar labaad iyo mar saddexaad si aadaan idinkugu mahadcelinaynaa waxaan aad iyo aad farxad noo ah maanta aqoon-yahano Soomaaliyeed dadkii bulshada waxtarka u lahaa dadkii neergaradka ahaa dadkii siyaasiyiinta ahaa maanta inay halkaan noogu eegyihiin ay marti noo wada yihiin dhammaan sidaas darteed haddii aan nahay bahda Zamzam farxaddaas mid lamid ah annagana idinla qabnaa waan idinkaaga mahadcelinaynaa intaas kadib haddii aan magacayga ku hormaro magacayga waa Ismaaciil Axmed Beerey degan Sweden kana mid ah howlwadeennada hay'adda Zamzam Foundation. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. magacaygu waa Maxamed Diiriye Qaliib waxaan deganahay dalka Norway gaar ahaan magaalada Oslo waxaan ka mid ahay howlwadeennada hay'adda Zamzam Foundation ee dalka Norway. السلام عليكم سعيدة محمد قبضان أيها الإرهادة وحن كيمت هلسنكي فنلند ولواتن سنة جوجا و human rights activist كان هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. عبدالله حسن يوسف وكيما هذه مقالة أودنس دنمارك مقالة أودنس واحد تجينا لقياستي كونية تدرب ولا ثقافة صومالية وبرشيد و social sciences وحن كشغيا job center كأودنس. بسم الله الرحمن الرحيم. مجاي هو عبد الرحيم حسين from Helsinki فنلند waxaan deganahay sidoo kale muddo 8 sano waddanka Finland waxaan ahay arday political science waxaan ahay siyaasi xisbiga center party loo yaqaano ee waddanka Finland. magacaygu waa Xasan Ali Maxamuud waxaan deganahay Norway gaar ahaan Oslo. Assalaamu calaykum waraxmatullah. magacaygu waa Abu Bakar Maxamed Norway waxaan deganahay Oslo. Hi, my name is Mona. I'm from Malmö, Sweden, from an organization in Malmö. I lived in Sweden for 4 years. I moved from Canada, so I'm also studying university. At the same time, active in the local level youth, especially working with youth in Malmö. Norway. xildhibaan local siyaasadda ah isla markaana u shaqeeya hay'adda integrationka isdhexgalka iyo diversity wada noolaanshaha maasantii. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. magacayga waxaa la yidhaha Faadumo Cali Madar waxaan ku jiraa golaha deegaanka ee Oslo waxaanan runtii taageersanahay ururada gudaha iyo dibaddaba ka caawiya dadka Soomaaliyeed. Maxamed Cilmi Sabriye waxaan deganahay Oslo Norway waxaan ka shaqeeyaa jaamacad ku taal magaalada banaankeeda waxaan ahay cilmi baar. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. magacaygu waa Xasan Cali Cumar waxaan u shaqeeyaa dowladda Norway waxaan ahay la taliye waxaan hogaamiye ka ahay urur Soomaaliyeed oo la yiraahdo Intersom International Somali Forum Norway ayaan deganahay Oslo. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. magacaygu waa Daahir Khalid waxaan ka imid magaalada la yiraahdo Göteborg in Sweden waxaan ahay business consultant. magacaygu waa Ubax Maxamed Cabdiqaadir waxaan deganahay Oslo waxaana ka shaqeeyaa wasaaradda hay'adda isdhexgalka ilaalinta qaabilsan waxaan kaloo ahay politician waxaan kaloo chairman ka ahay committee u qaabilsan ajaanibka iyo dowladda. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. magacaygu waa Cabdiqaadir Gacal waxaan ka imid Denmark magaalada Copenhagen waxaan u shaqeeyaa dowladda xafiiska job centerka waxaan ahay la taliyaha xagga shaqada ee dadka ajaanibta ah iyo deenishka shaqooyinka kala taliya ama shaqooyinka caawiya. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاعد وحوي باشا محمد موسى وحنا حلبان كتسان كلها ديجان كمقالة أوسلو. دلك النوري واحد شغال إلى مدة 3 سنة دودا. أخوان عربتي وحنا علم جفل الشدة جامعة. وحنا كنتي سجارة وهم هذا نقيا كل كان مانتا أوروك سمسم أو الرضع الصب رنتي كسر بيرين أو حقبتك دلك النروي. هذه أدمان دي كم هذا نقيا أنا قبله ودين أوجا. waxaan ilaahay uga rajeynayaa inay guul wacan gaadhaan marka runtii farxad gaara ayay nootay mar labaad waxaan u mahadnaqayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ururka Samsam aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum. Cabdi Maalik Axmed oo leedahay
magaalada Malmö oo ka imaaday Sweden ku taalo arrimaha dhalinyarta aan ka shaqeeyo. marka hore waxay ahayd isbarashadii oo dhacday waxa inoo xiga hay-adda maanta qadada idin sameysay ee Samsam Foundation qadar daqiiqada aad daawan doontaan waxqabadkeedii oo ka kooban muddadii ay ka jirtay dalka Soomaaliya guud ahaan kadib barnaamijkii ayaa toos inoogu soo furmi doona waxaa noo furi doonto walaasheen xildhibaan Faaduma Cali Madar kadib waxaa qaadan doona dalka Sweden martida nooga timid ee qaaliga waxaana u hadli doonto Muno Maxamed 10 daqiiqo Denmark waxa uu hadli doona martida nooga socota Cabdisalaan isagana leh 10 daqiiqo Finland waxa nooga hadli doona Cabdiraxiim waxaa kaloo halkaan la joogo gabadha la yiraahdo Ingrid Sheldis oo iyadana meeshan ka hadli doonto 5 daqiiqo barnaamijku waxaa noo soo xiri doona xildhibaan Cabdullaahi Calasuun oo ah xildhibaan Kiristaansaan ka socdo kadibna waa qadayn doonaa guud ahaan barnaamijka intaas ayuu ka kooban yahay. In Somalia, a country in the Horn of Africa, successive wars and environmental disasters such as droughts, tsunami, floods, and epidemics continue to cause human suffering and the death and displacement of many innocent populations. The Zamzam Foundation was founded as a non-profit charitable organization in Mogadishu in 1992. waxaan marka ku soo dhaweynaa mikrofoonka wakiilka Samsam ee qaaradda Yurub oo idin bari doona ama idin sharxi doona Samsam waxay u taagan tahay waxay tahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهرين waxaan salaamayaa dhammaan martida qiimaha badan ee ka timid wadamo kala gedisan sida Denmark, Finland, Sweden iyo Mareykanka. waxaan si gaar u salaamayaa xildhibaanada Soomaaliyeed oo anaga xildhibaano ah ee degan waddanka Norway ay ka mid tahay Ubax Abdulqaadir, Fatima Cali Madar, Alas Baashe dhammaan waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawaada. waxaan si gaar ah u salaamayaa gabadha martida ah ee ka mid ah dadka barnaamijka soo qaban qaabiyay markastana u taagan isdhaxgalka ee diasporada sida ay wada shaqeyn lahaayeen iyadana waan u mahadcelinayaa Ingrid Shell waxaan leeyahay ku soo dhawaaw madasha Soomaaliyeed ee maanta isku baranayso ay qayb ka tahay waxaan u maleynayaa dadka qaar baadaalan waqtiga waa yaryahay marka si aan soo gaabiyo Zamzam haddii aan ka hadli lahay iyadoo film oo wada aragnay marka just intaas aan ugu filan oo marka taan iska fadhiisto Zamzam maxay tahay loo baahno si kooban annaga maartay Zamzam waxaan xafiisyo ku leenahay wadamo badan oo ay ka mid tahay waddanka Canada, Qatar, Djibouti, Kenya iyo hadda aan ka furnay waddanka Norway. si loo kala xafiisyada ku leenahay waxaa ka mid ah Hargeysa, Boosaaso, Kismaayo, Hiiraan iyo Baydhabo. marka hore aad baan ugu faraxsanahay inaan arko intaas wadada Soomaaliyeed oo ka kala timi wadamo kala jaada. marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa Zamzam qadadii waa mid aan ka helnay macaanteeda intaba waxaan raacsiinayaa in Soomaaliya marka ay noqoto caawimada ugu weyn ee la siiyay waxa siiya dadka Soomaalida caawa oo ay taariikhdu tahay 19 bisha 3 2012 waxaan jecelnahay ambaan isugu imaanay xafladii xiriirka xafiiska Zamzam Foundation qaybteeda Yurub oo runtii lokaalkiisa caawa in xarga laga jaro aan rajeynayno ay marti nooga tahay xildhibaanadeena Faaduma Cali Madar. aad iyo aad ay farxad igu tahay inaan ka soo qayb galo furitaanka xafladda Zamzam ee Oslo. waxaan xasuustaa 1992 markii laga furay Zamzam waxaa ahday waa ka qayb galay caawana farxad ay tahay marlabaad السلام عليكم xildhibaanada Faaduma Cali Madar wakiilka Samsam Foundation Europe Ibrahim Doodaye saaxiibkii Mr. Khaliif iyo ka soo qaybgalayaasha xafladda furitaanka xafiiska Samsam Foundation ee magaalada Oslo Norway
farxad bay tahay in aan ka soo qayb galo xafladda lagu furay xafiiskan runtii farxad weyn ay tahay caawa barnaamijkan qiimaha leh oo furitaanka ah Zamzam runtii waxqabadkeeda laga sheekeeyay marka waxaan dhihi karaa runtii waa hay'ad way dhaaftay waa dawlad wahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رهانتي ألبان وفرحي لغير المستقبل كعاوة كسبتمي waxay tusaysaa in maaragtay ay tahay samsam hay'adda mustaqbalka ka taabageli doonta geeska Afrika insha Allah taala waxa la yaab leh waxay weeye waa hay'addii ugu horeysay Soomaaliyeed ee xafiis xarigeeda laga jiro Oslo iyadoo weliba caawinaysa dadka inta ugu jilicsan Soomaaliya oo ah qaxoontiga iyo dadka reer guuraaga loo yaqaano labadaba waxa kaliya u maqan waa ilaahay uu ku filan yahay laakiin waxa loo baahan yahay dad u dadaala oo macnaha sida hay'adda Samsam u suurtageliya sidii ay isku filaansho u gaari lahaayeen isku filaanshana waxa lagu gaaraa marka la helo qofka bini'aadankii wuxuu ku dhaqaaqo oo ah biyo iyo cunto iyo xoolahoodba way ogtihiin Soomaaliya maanta meel kasta la tago dadku xoolo dhaqato waa reer guuraa taasay usii raacday meelaha qaar nabadgelyo darro iyo qaxoonti taas marka waxay keenaysaa in qof kasta oo Soomaaliya meel kasta ku nool yahay adduunka uu la yimaado dadaal dheeraada si uu maaragtay dadkaas u badbaadiyo maadaama qaybaha Soomaaliya kamid ah ay dawladdan haysato taasna ay ku keentay deganaanshiyo la'aan marka waxaan rajaynayaa dhammaantiin dhalinyaradiina halkan isugu timi ilaa 30 iyo 40 gaaraysa haddana tiradooda khaldanayn waxaad tihiin mustaqbalkii dhalinyaradii u bixi Soomaaliya u soo dhoofay waxaan idinka rajaynayaa inaad ku dadaashaan sida dadkiinii iyo dalkiinaba u caawin lahaydeen idinkuna aad uga faa'iideysan lahaydeen fursadaha Yurub yaala oo Norway ay tahay wadamada ugu fursadaha badan xagga waxbarashada xagga shaqada horumarka waxyaabahaas oo dhan ka faa'iideysataan isla markaana idinkuna uga faa'iideynaya dalkiina iyo dadkiina ka timaadeen aad marisaan awoodiina ilaha markaas leedin baneeyay oo ay ka mid tahay Samsam ood marin kartaan dhaqaale iyo maskax iyo cilmi wixii aad haysan intaba